halkan waxa la yiraahdaa biyo kulul dadku ilaahay dawo u saaray noocan xanuun lala imano ilaahay kaga daweeyay ma jiro marka waxa weeye dhulka caynkaas oo kala ahayna waxay u baahan yihiin waxyaabaha ilaahay qudradiisa garanaysa ku beeray weey in ilaahay isagu dadka ku daweeyo nadaafadooda iyo nidaamkoodana la ilaaliyo meesha waa waajib Yurub baa looga yimaado America looga yimaado gobolada dhan baa looga yimaado xamar baa looga yimaado meel aan looga iman ma jirto Kenya looga yimaado marka waxa weeye biyaha ilaahay dadka dawada u saaray ee halka dhigay waa qudrada ilaahay weey ilaahay baa lagu mahadnaqaya waxaana u baahan yihiin wax dayactira oo qashinka ka ilaaliya oo hadee baxmaayo maryaha lagu qubayo ka ilaaliya oo bacaha ka ilaaliya oo hadee baxmaayo masaxooyinka iyo qashinka la dhigayo ka ilaaliya oo nadaafadu sameeyay doonayaan oo dayactir iyo hadee baxmaayo wanaag lagu sameeyo khabaro loo soo diro biyaha la baaro oo la ilaaliyo oo dhaqaatiir loo soo diro la ogaado caafimaadkooda iyo dawadooda la ogaado ayaa meesha taala marka waxa weeye gabadh xanuunsanaysay caafimaad baa ilaahay ku siiyay biyaha dabadna masaajidkaas ay u dhisay hor ilaahay taban cisaalka lagu hayay dabadna way lugaysay iyadoo markii hore lagu siido rab marka waxa weeye markii caafimaad ilaahay caafimaad ku siiyay iyana abaalgud ilaahay tiri waan abaalgudaya masaajidka u dhistay marka waa lagu tukadaa dadka imanaya meesha ayaa ku tukada kuwa caafimaadka qaba wada dadka xanuunsanaya kuwa caafimaadka hadda maxay xanuunsanaya ladnaada dawaa lagu tukadaa